danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanku uu ka caawiyo Soomaalida sugidda amniga oo ay ku jirto in ay gacan ka siinayaan arrimaha sirdoonka iyo qaabka la dagaalanka Al-Shabaab. Danjira Yamamoto oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Shabeelle ayaa sheegay in sidoo kale Mareykanku gacan ka geystaan arrimaha horumarinta iyo ka gacansiinta Soomaalida in ay cagahooda dib isku taagaan. Warbixin arrinta ku saabsan waxa inoo diyaariyay Maxamed Amiin. danjiraha Mareykanka ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka caawiso Soomaaliya qaybo fara badan oo kala duwan sida horumarka waxbarashada, abuurista shaqooyinka gaar ahaan kuwa dhalinyarada, fulinta mashaariic horumar iyo sidoo kale horumarinta iyo tayeenta xoogagga ammaanka Soomaaliya. Danjire Yamamoto ayaa xusay in Mareykanka uu gacan ka siiyo Soomaaliya unug gurguura oo dabagal ku sameeya kooxaha qaraxyada ka geysta Muqdisho, isagoo sheegay in qaraxyada ka dhaca Muqdisho ay noqon doonaan kuwa yaraada. We are launching mobile units which goes after bomb makers and caches of weapons and explosives to keep communities. Waxaan sameynay unugyo guurguura oo dabagala kuwa soo farsameeya waxyaabaha qarxa, kaydka hubka iyo qaraxyada. Waxaa jira sirdoon soo ogaada xagee ka dhacayaan qaraxyada yaa ka dambeeyay. Waxaan tababarnaa booliska Soomaaliya. Well, we're helping, we're training. That's another area. danjiraha Mareykanka ayaa dhanka kale waxa uu xusay in dadaalada lagu caawinayo xoogagga ammaanka Soomaaliya in kaliya uusan ku koobneen la dagaalanka shabaab, balse sidoo kale uu Mareykanka gacan ka siiyo Soomaalida soo qabashada kooxaha kale ee dambiyada geysta. Mudane Yamamoto ayaa sheegay in gobolka Bariga Afrika uu yahay meesha ugu ballaaran ee la geeyay gargaarka cunno ee Mareykanka caalamku uu ku caawiyo. Wuxuu danjiraha sheegay in marka laga hadlayo Soomaaliya in dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba aysan gacanta ku hayn dhulka wax soo saarka beeraha udub dhexaadka u dalka, isagoo carabka ku dhuftay in dhulkaas ay haystaan oo ay maamulaan Al-Shabaab, lagana doonayo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulkaasi. Somalia doesn't control the heartland of the agricultural area. Shabaab does. And until you Soomaaliya ma maamusho dhulka wax soo saarka beeraha ee Shabaab ayaa haysta. Ma heli kartaan cunto, mana ahan wax waari karta. Waxaa loo baahan yahay in Soomaaliya gacanta ku dhigto dhulkeeda beeraha iyo goobaha lagu qaybiyo cunnada. Waana sidaas waxa aan ka caawinayno dawladda iyo dadka Soomaaliyeed. Mar safiirka aan wax ka weydiinay arrinka muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa mudane Donald Yamamoto waxa uu sheegay inay habboon tahay in dalalka Geeska Afrika ay hiigsadaan himilooyin waqti fog ku salaysan, isagoo sheegay in dalalka shidaalka soo saaray ee qaaradda Afrika ay yihiin kuwa lagu leeyahay deymaha ugu badan ee qaaradda. The countries that have been oil producers in Africa are now in debt. And in fact, the worst indebted countries are those countries that have oil and high levels of resources. Dalalka Afrika ee shidaalka soo saarta waxaa lagu leeyahay deyn. Wadamada ugu daran ee deynta lagu leeyahay waa kuwa saliidda soo saara, lehna kheyraad kale. Wadamada dhaqaale ahaan wanaagsan waa kuwa aan lahayn shidaal. Ma ahan in aan aqbalo muran kama hadlaya Afrika ee guud ahaan caalamka, waana waxa aan u sheegno caalamka oo dhan. Ha eegina faa'iidooyinka yaryar ee dhaqaale ee fiiriya mustaqbalka fog. Immediate economic gains. Look at the long-term future. Maxamed Amiin, Shabeelle TV.